بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isku imanaynaa mar kale maadadeennii chemistry-ga ahayd chapter-keennii afraad oo aan casharadiisa soo jajabinay inagoo maanta ka bilaabaynaa lesson 5 waxaan ka bilaabaynaa topic-geennii ahaa 4.4 markaa sababtu lesson 5 u noqday waxay tahay hal cashir ayaan soo kala jarnay oo dheeraaday saa darteed buu kani lesson 5 u noqday waxaan eegaynaa maanta measuring energy transfers and enthalpy change cabirka la cabirayo tamaraha isbedelaya energy transfer tamarta gudbaysa waan sheegaynaa say u gudbayso iyo welibana enthalpy change-ga at the end of the lesson casharkaasi marka uu dhammaado waxaa laynaga rabaa student should be able to waa inay awood u yeelan karaa ardaygu ama bartuhu inuu ka shaqayn karo experiments layna siiyey inuu enthalpy change-ga soo saari karo sidoo kale demonstrate heat transfer of combustion inuu samayn karo oo uu ka shaqayn karo waxa loo yaqaano heat change welibana marka laga hadlayo combustion data gubasho ka hadlaysa qodobka saddexaad waxaan leenahay demonstrate heat transfer of other reactions inuu falgale kale inuu falgalayaal kale sidoo kale uu soo saari karo energy transfer-ka iyo enthalpy change-ga waaya markaan ka hadlayno waxa loo yaqaano enthalpy change-ga marka la calculate garaynayo bal fiiriya waxa la marayaa laba hab midkood calculations on enthalpy ama waxay noqon karaan waxa la yiraahdo experimental result natiijo ka timiday tijaabo in lagu siiyo sida maanta cashirkeena natiijada ka timiday tijaabada inaad ka shaqayso wixii laga weydiiyay waa qodob oo enthalpy change-ga soo saarto ama inaad isticmaasho bond enthalpy values dabaradii tamarta lagu burburinayay ee xiisadeennii hore ka soo hadalay inaad isticmaasho oo aad soo saarto tamarta labada qodob waa labada qodob ama labada hab ee enthalpy change-ga lagu calculate garan karo marka experimental result-ga ayaa waxaan u kala qaybinaynaa laba qaybood direct qayb tijaabo toos ah warbixinteeda layna siinayo oo maanta waxaan arki doonaa biyaa la diiriyey shidaal baa lagu diiriyey biyaha la diiriyey maaskoodu intaabuu ahaa direct waa kaa iyo qayb indirect qaybtaan leenahay waxaan ku arkaynaa cashirkeenna dambe oo waxaan isticmaalaynaa Hess's law waxaan ogaanaynaa marka calculationka enthalpy-gu inuu labada nooc noqon karo experimental result maraan haysano iyo maraan haysano bond enthalpy experimentalku inay u kala baxayso direct iyo indirect in layna siiyo tijaabo saxa warbixinteedii oon ka shaqayno iyo mid dadban oo aan isticmaali doonno hadhow waxa loo yaqaano Hess's law waaya measuring energy transfer and enthalpy change waxaan iska ilaalinaynaa qaacidooyinkaan isticmaalayno marka laga hadlayo energy transfer waa tamarta gudbaysa transfer maadaama aan niri biyaa la kululeynayaa waxa la isticmaalayaana waa fuel tamarta ka imanaysa from the fuel to the water ee biyaha soo gaaraysa energy transfer baan u bixinaynaa tamarta guud ee shidaalkaas oo isticmaalayna enthalpy change baan u bixin doonaa sidaa darteed waxaan isticmaali doonaa qaacidadani basic ahayd ee physics-kan ku baranay Q waxay la mid tahay MC delta T qaacidadaasaan isticmaalaynaa waaya Q maxay u taagan tahay Q waxay u taagan tahay quantity of heat measured in joule waa tamarta inta tamar ah ee ay biyahaasi qaateen halbeega Q oo quantity of heat ah halbeegiisu waa joule iska ilaali halbeega enthalpy change-guna waa kilojoule meeshaan kala ilaalina marka halbeegaasi Q-du marka waa joule M maxay u taagan tahay M2 waxay u taagan tahay maaska biyaha delta T waa isbedelka temperature-ka waa change in temperature ama temperature change delta waa change isbedelka temperature-ka iyo heerkulka ku dhacaya ay noqon doontaa C oo la yiraahdo specific heat capacity ama kulqaad iyadna waxaan u bixinaynaa waa tamarta loo baahan yahay si kor loogu qaado 1 gram by 1 degree Celsius definition-kii lagu define garinayay specific heat capacity-ku noocaas ahaa waa in kor loo qaado shay 1 gram ah 1 degree temperature-kiisa specific heat capacity baa la yiraahdaa
halbeegeeduna waa joule per gram per celsius ama joule per gram per kelvin temperature-ku waxa uu yahay unbay ku xidhan tahay waayahay in your calculation markaan doonayno experimental resultska tijaabooyinka natiijooyinkooda layna siiyey inaan ka shaqayno markaan u baahannahay calculation-kaaga waa in saddexdaa qodob laga helo saddexda qodob maxay yihiin kow calculate the heat quantity of heat inaad soo saarto using adigoo isticmaalaya mc delta t waa inaad soo saarto waa kow qodobka labaad find the number of moles waa inaad soo saarto tirada moolal ah ee la isticmaalay adigoo isticmaalaya n oo mol ah waxay u dhigantaa mass divided by molar marka qaacidadaasi waxaan isticmaalnaa markaan haysana mass or ama number of moleska waxa lagu helaa c times v concentration times volume qaacidadan waxaan isticmaalnaa markaan haysano volume iyo concentration marka number of moleska marka la raadinayo waxay ku xiran tahay wixii aan haysano haddaan mass haysano mass divided by molar molar mass haddaan concentration iyo volume haysano concentration times volume baan isticmaalinaa ugu dambayn qodobkaasi waa number 3 number 1 waa number 3 calculate the enthalpy change using adigoo isticmaalaya delta h waxay la mid tahay q divided by n labadii step ee sare wixii aad ka soo shaqeysan baad isku qaybinaysaa markaad enthalpy change-ga soo saarayso energy transferskaas hore iyo number of moles baan isku qaybinaynaa waaya tusaalehena fiiriya tusaalehena meeshaan ku haysano waa experimental result waa natiijo ka timiday tijaabo sawirna meeshaasan ku haynaa waxa layna leeyahay combustion of butane gubashada ay gubanayso waxa loo yaqaan butane oo ah C4H10 is shown in the equation below ayaa waxa lagu siiyay equation-kan waa layna siiyay equation-kii maanta waxaan haysanaa C4H10 plus 6.5 oxygen molecule produces carbon dioxide plus water marka fiiri 6.5 kaas xaguu ka yimiday balanced-ka marka combustion-ka la miisaamayo waa anagii soo sheegnay in shayga oxygen-ta ku gubanaya aan waxba la hor dhigin laakiin meelaha kale la balance gareeyo haddaba waxaa layna leeyahay tijaabadaasi inaan experiment 29 gram of butane bal iska ilaali masska butane waxaa la isticmaalay mass ah butane 29 gram 29 gram ayaa la isticmaalay waaya waxaana lagu gubay 200 gram oo biyo ah halkana waxaan haysanaa masska biyaha water waxaan haysanaa 200 gram oo biyo ah ayaa lagu gubay waaya the temperature raise heerkulkii wuxuu kor u kacay delta t waa lagu siiyey ilaa 10 degree celsius halkaasna waxaan ku haysanaa delta t waa 10 degree celsius maadaama waxa laga sheekeynayaa ay water tahay specific heat capacity-ga waterka waa lagu siin 4.2 joule per gram per celsius waaya sawirka meeshaan ku hayna marka waxaad arkaysaa biyihii la kulaylinayo oo fuelkii iyo shidaalkii dabkii hoos u kaga shidmayo waxa laynaga rabaa marka su'aalo ah biyahaasi tamar intee leeg bay qaateen waa kow laba waxa laynaga rabaa number of moleska fuelka ee shidaalkii la isticmaalay saddex waxa laynaga rabaa enthalpy change-ga fuelka shidaalkaasi tamar intee leeg buu haddii 1 mol u noqdo oo lumin lahaa waaya su'aali waa kuwan marka su'aasheena koowaad heat gained by the water waxaad soo saartaa heatka iyo tamarta biyuhu ay qaateen dabkii baa lagu kulayliyey tamar intee leeg bay qaateen waayahay qodobka labaad waxaa laynoo diray number of moles of butane number of moleska butane ee la isticmaalay inaan soo saari karno qodobka saddexaad waxaa laynoo diray heat released from 1 mole of butane hal dersin oo butane ah heat intee leeg buu sii dayn karaa oo lumin karaa fiiri marka waxaan leenahay markaan ka shaqaynayno weydiimaha noocaasa eeda waxaan odhanaynaa maadaama layna weydiiyey heat gained by the water waa energy transfer waxaan isticmaalaynaa q waxay la mid tahay mc delta t bal ila soco maadaama heat laynaga rabo tamarta biyuhu ay qaateen waxaan isticmaalaynaa maaska biyaha waxaan odhanaynaa m waa maaskii biyaha 200 oo gram oo lagu dhuftay specific heat capacity c waan haysanaa 4.2 joule per gram per celsius times delta t waan haysanaa 10 degree celsius waaya intaa markaan meesha ku hayno halbeegyadan iyagaa isla baxaya gram iyo gram waa hooseeya gramkaasi celsius iyo celsius iyagaa isla baxaya intaasi markaan isku dhufanno waxay noo soo baxaya 8,000
iyo 400 oo joule waayo halbeega nool waa joule inagu markaas si ayna hadhow dib inoogu keenin joule-kan waxaan u bedelaynaa kilojoule intaas waxaan u qaybinaynaa kun baan u qaybinaynaa waxaan helaynaa 8.4 kilojoule waayahay waa su'aashaydii ahayd a su'aashayda a ah ee energy-da ay qaateen biyuhu waxaan isticmaalayaa mc delta t haye su'aashayda b-da number of moles of butane number of moles butane baa laga rabaa war waxaan isweydiinayaa labadii qaacido ee ahayd mass divided by molar ama ahayd c times v concentration times volume kan isticmaalaya waxaad isticmaalaysaa mass divided by volume waayo waxaad haysataa butane mass baad haysataa ma arkaysaa waxaan samaynaynaa marka number of moleska waxaa lagu helaa masska oo loo qaybshay molar masska masska waxaa la siiyey 29 gram oo loo qaybshay molar masska halkeen kala soo baxaya waxaan kala soo baxaynaa isku dhiska butane waa C4H10 waxaan oran jirnay imisa symbol baan haysanaa labo kala qaad waa C iyo H imisa carbon ba meesha ku jira 4 lagu dhuftay 12 48 imisa hydrogen baan haynaa meesha 10 lagu dhuftay raamkeedii 10 inta markaan isku daro waa 58 gram per mol halbeega raacinayna saasoo ha waxaan u qaybinaynaa marka intan 58 gram per mol waxa isla baxaya gram iyo gram meeshaas waxa ka soo baxay labada markaan isku qaybiyo 0.5 halbeega nool waa mol waaya c istabka saddexaad waaniga kuri calculation kaaga waa inaad marka koowaad isticmaasho q equal mc delta t marka labaad waa inaad isticmaasho number of moleska marka saddexaad q divided by n waxa la weydiiyay marka istabkeena saddexaad heat released from 1 mole of butane tamarta uu sii deynayo ama uu luminayo hal dirsin oo butane gas ah ama fuel ah waxaan leenahay delta t waxa lagu helayaa delta h waxa lagu helayaa q divided by n waan sheegaynaa si kale lagu soo saari karana enthalpy change-gaasi laakiin qaacidada haddaan isticmaalno q maxay noo soo baxday 8.4 kilojoule divided by number of moleski maxay noo soo baxeen 0.5 mol labadaa markaan isku qaybino waxaan helaynaa 16.8 halbeega fiiri kilojoule per mol waayahay haddaba maadaama falgalkan uu yahay combustion ama gubasho shidaal uu gubanayo combustion reactionsku waa exothermic ama combustion of fuelsku waa exothermic sidaa darteed tamartaas oo bixinaya shidaalku waa exothermic waxaan ku daraynaa calaamad maynisa oo sheegaysa inuu falgalku yahay exothermic waayahay qaabkaasi aan u soo saarnay qaaban ahayn waa loo soo saari karaa oo waxa la oran karaa fiiri or waa taw dambaysa waxa la oran karaa masski butane imisoo ahaa 29 haddii 29 gram ay soo saareen tamarta intaa leeg 8.4 kilojoule haye imisay soo saari lahayd 58na halkaasaad ku qoraysaa 58 gramna waxay soo saaraysaa x waxaad isticmaalaysaa talantaali marka gram iyo gram waan isku tuuraynaa labadana isku dhacaya 29 ka u qaybsamaya waaya taana jawaabtu way noo soo bixi kartaa example 2 example keena labaad markaan tagno waxaan haysanaa inaan experiment tijaabo ayaa to determine waxa lagu determine gareynaya ama lagu soo saaraya standard enthalpy change of combustion gubasho propanol symbolkeedina waa la nasiiyay gubashadaasi ayaa waxa la yiri waxa la sameeyay sawirkan iyo tijaabadan haddaad meesha fiiriso waxaad ku haysataa sawirka meesha inoogu sawiran in biyo la kulaylinayo waxaana lagu kulaylinayaa shidaal ah propanol waxay ku taagan tahay hoostay inoogu sawiran tahay waayahay weelka yar ee hoosta yaalla ayaa propanol ay noogu jirtaa experimental resultiga markaan hayno sawirkaasi marka halkaas waxaa noogu qoran thermometerkaas wuxuu sheegayaa change in temperature biyihii baa la diirinayaa waxaana lagu diirinayaa fuel iyo shidaal la yidhaahdo propanol su-aalaha layna weydiinaya waxaa ka mid noqon doonta hadhow gubashada tamarta biyuhu ay qaateen number of moleska tamarta guud ee shidaalku bixiyey waayahay waxay kuwiishana maanta laynama siin sidii teennii hore waayahay waxaa layna yidhi isticmaal natiijadan waxaad haysataa maaska biyaha 200 gram waa as an result example temperature-kii waxaad haysataa 20
kelvin marka celsiusna waa lagu siin karaa kelvinna waa lagu siin karaa loss in mass of fuel masska fuelka shidaalka lumayna waxaan haynaa 30 gram waa given waxaas specific heat capacity-ga waterkana waa layna siiyey waaya su'aalaha layna weydiinaya fiiri marka su'aalaha layna weydiinayo aan aad uga fiirsano kow waxa layna weydiinayaa write an equation for the combustion of propanol propanol markay gubanayso equation-keeda qor propanol markay gubanayso waa a waxaan odhanayaa combustion-ka propanol waa symbol-keedu waa C3 H7 O7 propanol waa yahay L plus way gubanaysaa oxygen gas waxa soo baxa mar kastoo organic compounds la gubo carbon dioxide oo gas ah iyo water oo biyo ah ayaa soo baxa waxa la inaga rabaa equation-ka inaan miisaano inagoo xeerkii combustion-ka iska ilaalinayna xasuuso combustion-ka marka la miisaamayo shayga oxygen-ta la falgalay waxba lama hor dhigo 1 mol baa lagu daayaa kaasi taaban maayo marka dhulka kale miisaamaya meeshan waxaan ku haystaa 3 carbon halka waxaan dhigayaa 3 meeshan waxaan ku haystaa 7 iyo 8 hydrogen halka waxaan dhigayaa 4 haye oxygen ma u baahanahay oxygen halkan waxay ka tahay 4 iyo halkan oo 6 ah waa 10 waxa laga rabaa marka halka 5 dhigi maayo iska ilaali waayo halkan ay xabadiye taala halka 9 baa laga rabaa maadaama 9 laga rabo meeshaas waxay noqonaysaa 4.5 waayo 4.5 times 2 waa 9 plus 1 waa 10 equation-keena koowaad ama su'aasheena koowaad ee ah inaan qorno equation-ka combustion-ku waa nooca b calculate the energy transfer in kilojoule tamarta isbedeshay ee ka tagtay shidaalka aadayna waxa loo yaqaano biyaha inaan soo saarnaan u baahannahay waaya tamartaasi markaan soo saarayno waa b waxaan odhanaynaa q halkaan way noo saarantay u fiirso waxay la mid tahay mc delta t maaska biyaha waxaan haystay 200 waaya 200 gram oo lagu dhuftay specific heat capacity-ga 4.2 gram per joule per gram per kelvin maadaama uu temperature-keenu kelvin u yahay times temperature-ka inta isbedeshay 20 kelvin 20 kelvin waxaan isku tuurayaa markaa gram kelvin intanaan isku dhufanaya waxay noo soo baxaya 16800 waa yahay oo joule ah waa yahay oo joule ah 16800 oo joule inagu kilojoule baa iskaga bedelaynaa mar walba kun baan intaa u qaybinaya divided by 1000 waxay soo baxaya 16.8 kilojoule waa meesha u fiirso c waa bd waa yahay c-da waxa la weydiiyey number of moles of propanol number of moles of propanol number of moles ka propanol markaan soo saarayo propanol mass baan haystay maanta 30 gram baan haysto mass ah sidaa darteed markaan soo saarayno waxa loo yaqaan number of moleska waxaan isticmaalaynaa qaacidadeennii ahayd number of moleska waxa lagu helaa masska oo loo qaybshay molarka masska waxaan haysanaa 30 gram haddaba waxa la iska rabaa molar masska symbolka soo qaado waxa tiraahdaa C3 H7 OH imise symbol oo kala duwan mar meesha ku haystaa 3 waa C iyo H iyo O kala gur marka 3 carbon oo lagu dhuftay 12 waa 36 8 hydrogen oo lagu dhuftay raamkii oo 1 ah waa 8 16 lagu dhuftay 1 waa 16 intaasi markaan isku darno waxay noo soo baxaya 60 halbeegu waa gram per mol waaya waxaan leenahay inta waxaan u qaybinaynaa 60 gram per mol labada gram baan isku saarayaa 0.5 mol baa soo baxay waaya ugu dambayn oo C ah oo ah D waxa laga rabaa inaan soo saaro enthalpy change inaan soo saaro enthalpy change-ga iyo delta H waxa lagu helaa Q divided by N Q waad haysataa wariya N waad haysataa isku qaybi 16.8 kilojoule oo loo qaybshay 0.5 mol labada markaan isku qaybino waxay noo soo baxaya 33.6 kilojoule per mol taasna waa jawaabteena maadaama combustion yahay oo exothermic yahay waxaan raacinayaa calaamad minus ah waaya tusaalaheena labada
experimental resultska labadaas sawir iyo labadaas tusaale ayaan soo qaadanaynaa bal waxaan fiirinaynaa enthalpy change of neutralization waxa la yiraahdo enthalpy change of neutralization waxaan ku define garaynaynaa waa energy-ga isbedelaya when an acid marka acid is neutralized ay dhexdhexaadiso by an alkali to produce loo soo saaro 1 mole of water hal dersin oo biyo ah under standard conditions iyadoo wata xaaladihii loo ilaalinayo sidoo kale waxa la oran karaa waa marka hydrogen ion ay la falgasho hydroxide ion si ay u soo saaraan 1 mole of water waaya tusaaleena fiiriya maanta tusaalaha meeshaan ku haysano waxay noogu qoran in enthalpy change of neutralization la inaga rabo meeshaasi haddaan aad u dhuuxno waan iska ilaalinaynaa waxaan meesha ku haynaa qaacidooyinkeenu man isticmaalaynaa mc delta t baan isticmaalaynaa waxa layna yiri 50 cm cubic oo hydrochloric acid waa volume-kii ayaa waxa lagu daray 50 cm cubic oo sodium hydroxide labadoodaba concentration koogu waa 2 mol per decimeter cubic volume iyo maxaad haysataa concentration waayahay temperature-ki wuxuu kor u kacay 13 degrees Celsius rise laguma oran marka initial from here to here lama oran hadii la oran lahaa waan kala jiri lahayn laakiin waa la inoo sheegay intaas kor u kacay waxa la yiri marka acid iyo alkali waa completely neutralized way isdhexdhexaadiyeen calculate the molar enthalpy change of neutralization enthalpy change-ga falgalka u dhaxeeya acid iyo alkali tamarta lumaysa soo saar maadaama neutralization reaction-ku uu yahay exothermic-na waxa la inaga rabaa jawaabtay noo soo baxda haday markay positive noqoto inaan inagu minus ku darno waaya waxaan sameeynaa marka xeerasheenii caadiga waxaan oranaynaa saddex step baan qaadanaa stepka koowaad q waxay la mid tahay mc delta t war bal u fiirso haddaad tiraahdo mass maba haysto masska waxaan kala soo baxaynaa volume-ka waxaan haysanaa 50 cm cubic oo acid ah iyo 50 cm cubic oo alkali ah isku dar waxay isku tahay 100 cm cubic waxaad ku dhufataa 1 gram per centimeter cubic oo ah density-gi biyaha labadaas ay isla baxay waxay noo soo baxaya 100 gram marka maaska aan meesha ku haysano inkastoo meeshan pure water hayn haddana assume baa la yiraahdaa assume waxaan meesha ku haysanaa marka 100 gram oo lagu dhuftay specific heat capacity-gi water-ka sidii water-kan u shaqeynaya 4.2 joule per gram per Celsius waaya lagu dhuftay delta t maxaan haystaa 10 halkaan waxaan ku hayaa 13 baan hayaa 13 degree Celsius waaya inta markaan meesha ku hayno ee qaacidada isticmaalo waxaan isku tuuraynaa calaamadahan gramkan iyo gramkan Celsiuskan iyo Celsiuskan waxaan oranaynaa marka isku dhufaynta waxay noo soo baxaya 5460 joule inagu joule-ka ma rabno marka waayo enthalpy change-ga kilojoule baa la inaga rabaa kun baan u qaybinaynaa 5.46 kilojoule baan haystaa waaya waa stepkayga koowaad stepkayga labaad number of moles baan la soo baxaya stepkii koowaad waa ka si aan molar enthalpy change of neutralization soo saaro saddex step baan maraya number of moles waxa lagu helaa fiiri maanta mass ma isticmaalayo waayo waxaan haystaa volume iyo concentration waxaan oranayaa marka concentration times volume concentration-ku waa 2 mol per decimeter cubic oo lagu dhuftay volume-kii waa 50 mid walba waan bedelaynaa oo waxaan u bedelaynaa decimeter cubic si uu labada halbeeg iskula baxaan waa 0.05 decimeter cubic waxaan leenahay marka 0.05 decimeter cubic labada markaan isku dhufto waxa ii soo baxay jawaab ah 0.1 waxa isla baxay decimeter iyo decimeter 0.1 mol waa number of moleski halka yaale ugu dambayn waxa laga rabaa enthalpy change ama molar enthalpy change of neutralization inaan soo saaro molar enthalpy change of neutralization markaan soo saarayno qaacidadeeni baa naafacaysa waxaan leenahay delta h waxa lagu helaa q divided by n q maxay noo soo baxday 5.46 kilojoule divided by number of moles n ah maxaan haysanaa 0.1 mol meeshaan waxaan ku haysanaa 54.6 kilojoule per mol war bal meesha iska ilaali
waxay ii soo baxday positive laakiin exothermic reactionku neutralization reactionku waa exothermic reaction sidaa darteed waxaan siinaynaa negative value jawaabteena minus 58.6 kilojoule per mole waaya intaas ayuu ku dhan yahay cashirkeennii waxaad fiirinaysaan exercise-ka su-aasha koowaad oo ka hadlaysa energy transferkii iyo enthalpy change-ga inaad soo saarto oo 0.9 gram ethane ayaa 200 gram oo biyo lagu gubay temperature-ku waa 200 su'aalaha ka jawaab marka equation ka qor energy transfer-ka soo saar number of moles ka soo saar enthalpy change-ga soo saar su'aasha u dambaysa oo number 2 ah waa tii hadda aan ka shaqeynay waa enthalpy change of neutralization ama molar enthalpy change of neutralization baa laynaga rabaa waxaad haysataa 25 iyo 2 mol 25 iyo 2 mol soo saar adigoo isticmaalaya stabiska molar enthalpy change of neutralization intaas inoogu dhan yahay cashirkeennii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh